higo sharkugu hagoogane ciidad waadan عقها قبيشة وليلتينو وروين كومانو عقبي ليسي هيبت وحاد كل داي دكاك هويو هيبت وحاد كل داي دكاك هويو وانا لما هراني لي وحقوقه وانا لما هراني انا لي وحقوقه هيبت وحاد كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومقعيق عيسى علي حال أشقيا دميرو أورر Somali Unified Youth اللي هاي مقالة كولومبوس أو صوبحل. This year we're doing a project concerning to the legacy and foundation of SYL, which stands for Somali Youth League, the group of young adults who brought independence and freedom to Somalia. And this year we're doing a video interview where we're questioning high school students and middle school students, also the older generation that have the history back home, and also what they want to be improved in the community that they live in here in the United States. So we have interviewed a couple of individuals as well that live in the city of Columbus, Ohio, that are Somali. And next year we're planning a bigger event. I'm the president of the organization Somali Unified Youth, SUY. And this year we just decided to do a video interview, but next year we're planning to do a bigger event. So inshallah, hopefully we're going to work our best effort to make that a successful event. And I want to thank everybody for watching this video, and hope you enjoy it, and hope to see you guys next year's event that we're planning on. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين دمان مقعيقة ومحمد جمال بشير waxaan ahay senior outreach-ka oo u fadhiya magaalada Columbus ururka la yiraahdo Somali Unified Youth anigoo ku hadlaya ururka magaciisa waxaan idin leeyahay soo dhawaada ururka sababta aan u aasaasnay ayaa waxa ka mid ah sida aan uga hortagi lahayn dhibaatooyinka Soomaalida ku haysta qurbaha sababta ururkan loo aasaasay oo specialty oo u ah in mataqaana caruurta hadda Soomaalida soo koraysa sida loogu mentor gareyn lahaa ama loo bari lahaa meesha ka yimaadeen taariikhda leeyihiin iyo identity-ga oo mataqaana nafsad ahaantooda ay waxay yihiin caruur badan baa waxa arkaysaa maanta haddaad wareysato war maxaa tahay adiga wuxuu ku leeyahay aniga Maxamed baa la yiraahdaa ama Cali aabihiis magaciisu ku sheegaya laakiin marka si raacday waxa laga yaabaa identity ahaan uusan waxba ka aqoon taariikhda Soomaaliya meesha ka yimaad marka ururkan sababta loo aasaasay waxa asal raaciisa in la helo ways ama hab caruurta Soomaaliyeed loo xasuusin lahaa taariikhdooda marka ururka sidiisaba marka aasaasnay waxaan u aasaasnay in caruurtaaneeto mataqaana in ay u baahan yihiin mentorship. Number 2 mataqaana la helo dhibaatooyinka kale hadda Soomaalida caruurta Soomaalida ka haysata iskuulada kale sida mataqaana gang violence oo kale iyo drug usage sida looga hortagi lahaa marka waxaan sameynaa in aan baxno oo caruurtaan iskuuladooda inta ugu tagno ayaan waxyaabo u baahan yihiin awareness ahaan oo aan ka siino marka mideeda kale oo reason-ka ugu qasbay inaan video-gan sameyno ayaa waxa maanta oo mataqaana oo taagan sanad guuriyadii SYL saan ognahay waa dhalinyaro oo arday isku imaatay oo mataqaana fikrad isku keentay sida wax ugu qaban lahaayeen wadankooda dhibaatada markaas haystay 1943 u haystay colonialism marka ujeedada ayaa waxay tahay haddii la helo dhalinyaro Soomaali ah oo isku xiran oo mataqaana fikradooda isku keensata oo og meesha ka yimaadeen iyo meesha hadda joogaan iyo meesha u socdaan markaas waa la heli doonaa ama waa laga yaabaa in la helo xal looga baxo dhibaatada hadda Soomaaliya haysta marka insha Allah SYL saan ognahay kuwii horta ayaga oo kala ku dayda Ilaahay hanaga dhiga amiin
mideeda kale SYL waxaa laga yaabaa markaa isweydiiso waxyaalo badan oo mataqaana maanta dhalinyarada hadda ay haysato aysan haysanaa jirto laakiin hal waxay haysteen determination go'aan ayay lahaayeen go'aankaas oo ah siday cadowgooda uga saaraan wadankooda annagana go'aankaan leenahay ayaa waxaa ah sidaan mataqaanaa community-ga aan deganahay ama aan ku dhex jirno saan mataqaanaa community wanaagsan aan uga dhigi lahayn ama waddankeenna markaan tomorrow aan ku laabano sidaan wax u tari lahayn ujeedadeena taas waay marka insha allah marka dhalinyarada hadda mataqaanaa soo koraysa siiba hadda kuwa yaryar oo mataqaanaa elementaryga iyo middle schoolka dhigto waxaa looga baqayaa inay milmaan ama ay soomaalinimadooda dhunto taasna waa marka mataqaanaa arrin weyn waaye oo u baahan waalidiinta iyo dadka waxgaradka ah inay ka fikiraan oo mataqaanaa oo ay uga fikiraan siday mataqaanaa caruurtan ay mataqaanaa u dhaqan celin lahaayeen marka annaga go'aankeenna waxaa waaye saan u helno dhalinyaro mataqaanaa oo intay wax kala geli lahaayeen sida gang violence iyo groups oo mataqaanaa aan faa'iido u keenin in mataqaanaa organization aan u sameyno organizationkaas oo mataqaanaa caruurtaan ku tababarayo self identity waxa ayaga yihiin inuu qof Soomaali yahay oo taariikh uu leeyahay uu diin leeyahay iyo dhaqan inuu leeyahay wiil iyo gabar marka insha Allah midaasna waa mid hadda mataqaanaa insha Allah oo ilaahay ka baryayno inay noo suurto gasho mataqaanaa SUY waa group mataqaanaa waa arday oo mataqaanaa middle school ilaa high school ilaa college dhigata oo mataqaanaa isku imaaday community-gooda wax uga qaban lahaayeen insha Allah kuwaas oo ayagana si mataqaanaa raad raacaya SYL oo ku taariikh lahaa taariikhdii Soomaaliya iyo xornimadii Soomaaliya soo martay insha Allah kuwii ku dayda ilaahay ha naga dhigo wassalaamu calaykum waraxmatullaah waa ku salaamantihiin waana ku mahadsantihiin halaha videoga aad dhegaysateen sidoo kale dadka taqaaniin saaxiibadiinana u sheega inay mataqaanaa ka qayb galaan ama ay ka arrin qaataan organizationada Soomaaliya mataqaanaa hadda wax loogu taraya ama organizationada community-gooda wax taraya maanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعد وحلا عبد الرحمن جيدي أنا أقول الله مقعد جروب كصومالي Unified Youth أو جروب كنا وحكا Vice President and ما أنت أرجعتوا فيديو موضوعنا وحوايا and مركو حوقا فاعنا لقسيو and حواي جروب كنا جروب كوحلا and سبت الأس أساسه وحواي and دليرت الصومالي ده مقالة كنول and قربها وطن كان مريكان كإني على سكانه oo macnaha waxa violence-ka iyo dhibaatooyinka oo ku haysto ina macnaha laga soo fogeeyo iyo dhaqankooda iyo diintooda wax u fiicanay macnaha bartaan midda kale maanta ujeedada xataa oo important thing ugu hadlayno videogan waxa waaye SYL Somali Youth League ujeedada oo xataa oo videogan maanta u duubeyna waxa waaye xusuus oo macnaha oo dhalinyarta Soomaali xornimada wadanka ay ku soo celiyeen dhalinyar waxay ahaayeen ka kooban 13 qof oo isku imaato fikrado isku darsada oo wadankooda wax u qabteen macnaha ma sha Allah muxuu ahaay hadaa la dhahmaanta dhalinyaro badan oo wadankan jooga ama qurbaha ama meel kastaba adduunkan ka joogaan saas dad camal saas oo kale waa la heli karaa inay isku imaadaan fikrado isku darsadaan oo wadankooda ay qabtaan miina ahayn macnaha inay dadka ka dhamaan marka ani ilmo yar waxaa dhihi lahaa inay seen camal oo kale oo imaaday oo wadankooda wax u qabteen xornimada u soo celiyeen anina waxaa dhihi lahaa Soomaalida dhan iyo dhalinyarta youth dhan isku imaato fikrado iyo waxa oo macnaha wadankeen oo qaban karno community-geenaba banaan iyo intaba isku qabanno aan isaawino midda kale oo dhalinyarta oo ku dhiirigelin lahaa waxaa dhihi lahaa waxa oo maanta oo macnaha oo khayr ilaahay oo nasiiyo waxa kamid ah wadankana joogno oo macnaha oo save no oo maanta Soomaaliya macnaha ka wada oo save no inta u joogno opportunity weyn oo kuleena wadankan inaan wax ku barano oo mustaqbalkana meel ka gaarno wadankana marka u laabanana oo wax u qabano taas oo ku dhiirigelin lahaa ilmaha dhalinyarta haddana mid kale hadda xoogaa dib u laabto oo groupkani oo Vice President oo group oo magaaladan oo Columbus ka tirsan waxa waa dhalinyar oo macnaha isku imaatay oo waxay rabaan in isu keenaan dhalinyarta magaaladan ku nool iyo meel kasta oo adduunka xataa hadii suurtagal noqoto hadda ma sha Allah si weynaano waxa jeclaan lahayn inaan xataa dalkeena Soomaaliya laabano oo macnaha xataa wax ka sameeyno oo
wax faa'iidayaal badan oo qabano waddankeena taasna waa jeclaan lahaa laakiin wax u baahana waxa waaye dhalinyartii marka hore inay isku imaadaan oo waddankooda iyo dalkooda iyo shacabkooda wax u qabtaan taasaa ku dhiilahay marka wax zaad oo hadda dhigi karan male waxaa ka rajeynaya ilaahay inuu dhalinyarta inay isku imaadaan iyo fikradooda iyo maskaxdooda inay dib isu celiyaan iyo macnaha oo ka shaqeeyaan maskaxdooda oo dhihi lahay aswa almiina ahayn dad macnaha oo la dhihi karo waa dad macnaha waaweyn ahaayeen laakiin dhalinyar sidana camal oo kale ahaayeen anakan sidoo waa noqon karnaa waddankeena waxa u qaban karnaa taasaa lii sheegi lahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. My name is Abu Karsane and I'm the manager and director of the Muslim American Society Columbus, Ohio chapter. As we are talking about today, there are our youth and the situation that they are facing in this society that they are living in is really enormous and great. And the challenge that we see come from sometimes from the school. They sometimes come from even home and sometimes come from the street. And those are the three areas that kids are challenged at the schools. They face kind of peer pressure from their classmates or schoolmates. And that peer pressure can have also negative impact in their life as they grow up in this society, as the people who came from a different culture and different society in back home, East Africa or Somalia or any other part of Horn of Africa. So that's really the challenge of having a double culture, the culture of a school while the mainstream culture is the dominant one in that area, and when they come back to home also they have another culture which is really the culture that they were born with, the culture that they have come up with from their home country or from their society back home. So those cultures may have some kind of negative impact in their life, or maybe having also good impact in their life. You're talking about now that sometimes they have there are good culture, there are something that you can follow and someone that you can imitate, and in this case we can talk about maybe what we can call, or what's called in this country, the American dream, which is having education, good education, and having a good life in your life and thinking for your future in the future in your life. And that's really, you can find out those people in the school also. You can find your teachers as role model for your life. You can find other students also in the classmates or maybe schoolmates who you can follow them and you can imitate them, the way that they study and the way they maintain their responsibilities at school and at large. So these are the people who you can take the role model and you can take the example from them and following them their footsteps, so that you can build yourself in a way that's very beneficial to you and to your family at large. Also, there are challenges at home, and the challenge at home that we are talking about also can be that the father